sharciyada iyo shuruucda ay soo saaraan golayaasha caalamku alaaba waxa ay ku taxalluqaan baahiyaha asaasiga ah ee dadka ay matalayaan. haddaba Somaliland sideedaba muddo aad fara badan waxa ka jiray golayaal isbedelay kuwaas oo ahaa sharci dejin. haddaba qodobadii muhiimka ahaa ee asaasiga ah ee nolosha dadka wax ka bedelayay kuwaas oo ilaalinayay xaqooda gaarka ah, sharaftooda, karaamadooda iyo waliba waxa ay xaq u leeyihiin dawladooda maadaama ay yihiin dad cashuur bixiyaala kuna hoos nool dalka. maxaa isbedela ay sameeyaan oo ay ku sameeyaan nolosha bulshada golayaasha la soo doortay xil walba kuwaas oo tacab, juhdi iyo waliba loo taagna cadceeda si ay u ilaaliyaan xuquuqda dadka ay matalayaan. balse tani guud ahaan Soomaalidu waabay ka siman tahay, balse bal waxaan soo qaadan doonaa ta inaga inoo gaarka ah ee Somaliland markasta oo ay khilaafiyo dhex yimaadaan sharciyada ama shuruucda oo ay isku hayaan xildhibaanada iyo siyaasiyiintu waxa ay ganacsi ama samaraati ka dhigtaan bulshada inteeda kale. balse su'aasha isweydiinta mudan ayaa ah horta bulshadan laga dhiganayo markhaatiga iyaga laftoodu ma yaqaanaan waxa ay xaq ugu leeyihiin dawladooda, dawladuna waxa ay xaq u leedahay ma heleen wixii asaasiga ahaa ay xaq ugu lahaayeen. yaase dawladda ama xukuumadda ku dabagelaya in la furiyay ballanqaadyadii loo sameeyay dadka waqtiyadii kala duwanaa ee xilka la furiyay ama se loo tartamiyay ma jiraan tari. balse xildhibaanadu waxay ku kala qaybsan yihiin inay taageerayaal u kala noqdaan musharaxiinta iyo waliba axsaabta dalka ka jira. xildhibaan kasta waxa uu isku haystaa in uu matalo beeshiisa iyo waliba xisbiga uu isagu ka soo jeedo, kaas oo mar walba ku dadaalaya inuu fuliyo danaha iyo rabitaanka musharaxiisa xisbiga uu isagu ka soo baxay ama soo matalayo. xisbigu sidiisaba waa goob la iska soo sharaxo oo laga soo baxo, balse xildhibaanku marka uu xildhibaan noqdo waxa muhiim ah inuu u shaqeeyo bulshadiisa. midda kale sidiisaba xildhibaanku ma aha malaa'ig, waa qof bini'aadan ah kaas oo geli kara dambiyo. haddaba xildhibaanka haddii lagu soo oogo dambi waxa uu xaq u leeyahay inuu iska difaaco eedeymaha loo soo jeediyey, balse xaq uma laha in uu bulshada kiciyo oo uu ka dhigto markhaati. bulshadaas oo haddii aad mikrofoonka la dhex marto ana iyaguba sheegi karin qodobadan laga hadlayo iyo waxa la isku hayo, xildhibaanku waxa uu xaq u leeyahayba iyagu kama jawaabi karaan. waxa uu ku qaldan yahayna sidoo kale kama jawaabi karaan, balse taa waxa ka jawaabi kara qoraha xeer ilaalinta dalka kuwaas oo ay muhiim tahay in ay dhexdhexaad ka noqdaan waxa la isku hayo. xildhibaankuna xaq waxa uu leeyahay inuu iska difaaco eedeymaha loo soo jeediyey, balse haddii ay sheekadu noqoto sharciga anigana ima qaban karo, balse dadka kale ayaan ku dhaqayaa. waana mushkiladda koowaad ee haysata bulshada Afrikaanka ah. haddaba maxay hore ugu xisaabtan weeyeen mas'uuliyiinta ay hadda eedinta u sheegayaan ama ay u soo jeedinayaan iyagu oo ay u marin waayeen ciqaabtii ay mudnaayeen.